maalin maalmaha ka mid ah waxa fasalka soo gashay macallimada iskuulka waxa ayna ku tiri arday kasta halkan ayuu soo istaagayaa waxa uuna ka sheekeynayaa shaqada uu qabto waalidkiis dhammaan ardaydii waa ay soo istaageen inta ugu badan ardayda waalidiintooda waxa ay ka shaqeynayeen ama ay ka tirsanayeen ciidamada qaranka والمفردات تحجرت شدهت فلا تقوى على استنطاق goortii uu soo istaagay ardaygani waxa uu sheegay in uu aabihii ka shaqeeyo Ceylon waa goobaha dumarka timaha ay ku quruxsadaan waa ay ku qosleen dhammaan ardaydii fasalka fadhisay فلا أنت من روى ma uu aamusin qusulkooda waxa uuna sii watay hadalkiisii oo kaga sheekeynayay aabihii قرآن ضوءا ساري بدت السماء بوسعها النوار واستمطرت فرحا hortii uu ka soo laabtay iskuulka waxa uu aaday goobtii shaqada ee aabihiis uu ka shaqeynayay صحو في ساحاتنا فالسعد لا يلقاه أي بواري ستكون مشعلنا وقدوتنا سنا عملا بعلم حفظه كدفار بدت السماء بوسعها النوار واستمطرت فرحا ونهرا جاري وبدأ أريج الصحو في ساحاتنا فالسعد لا يلقاه أي بواري بالعلم أنت goortii uu aabihiis dhameeyay shaqadii waxa uu u waday suuqa waxa uuna u soo iibiyay wax kasta oo uu doonayay in loo iibiyo فالعلم شمس لا يزال ضياؤه يعطي وريفا جاد كالأشجار يعطي وريفا جاد كالأشجار markasta raashinka waa isla cunaan waa una la kaftamaa waxa uuna isku dayaa markasta in uu ka farxiyo wiilkiisa فرحا ونهرا جاري وبدأ أريج الصحو في ساحاتنا فالسعد لا يلقاه أي بواري هذا أبي والمفردات تحجرت sidoo kale waxa uu sheegay in maalin maalmaha ka mid ah asaga oo ka soo laabtay iskuulka una socda xaafadda tuug wadada ku helay kana qaatay lacag yar oo watay أنت وعزنا ذلت دروبك قمة الأخيار waan cabsaday waxa aan maqlay qaylo codkii aabahay tuugina waa uu cararay درة لنصير بالقرآن aabe ayaa garabka i qabtay waxa uuna igu yiri haqalqalin aabe waqtigaas waxa aan dareemay amaan النوار واستمطرت فرحا ونهرا جاري وبدأ أريج الصحو في ساحاتنا فالسعد لا يلقاه أي waxa uu bilaabay aabe inuu subax kasta madrasada ii raaco soo noqoshadana iga soo celiyo وقدوتنا سنا عملا بعلم حفظه كدفار بدت السماء بوسع anigu waan ciseeyaa waana sharfaa aabahay dhammaan ardaydii fasalka fadhisay ayaa u sacbiday markuu hadalkiisii dhammaystay وبدأ أريج الصحو في ساحاتنا فالسعد لا يلقاه فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم
كل هم قد أصبنا imise nimcooyin ayaan dhexda kaga jirnaa kuwaasi oo Allah inagu manaystay isla markaana aan ugu mahad celinin rabbigii inagu manaystay nimcooyinkaasi labadaada waalid waa ay ku arkayaan adna waad arkaysaa oo waad maqlaysaa dheh alxamdulillaah markasta iyo mar walba dheh alxamdulillaah nimcooyinka rabbi lama tiri karo mana ahan kuwo la soo koobi karo aabaha waxa uu naxariisanayaa sida hooyada ay u naxariisanayso qalbigiisana naxariista hooyo qalbigeeda ka buuxdo mid la mid ah ayaa ka buuxdo aabaha qalbigiisa aabe waa waxyaabaha ugu qaalisan ee aynu haysano asaga iyo hooyo waalidku waa mid qaali ah agteena mana jiro wax ka qaalisan waalidkeen ya allah inta badan waxaan nahay kuwo waalidiintooda غائبين كأه أما أن وقت القادنين والد كذا وقت الله قادته أما أدرالي جلسه وحي لم يتهي أدو ربي رالي جليه قرني كودم بيسي والد كذا أدو شيكيسو أما أدلا فريسته هاي يابي والله وحي أورديان أي أشقينيان وأنا قدرتينا وحا أي كفكريان مستقبل كينا وحا أي حد يجار كود داليان سيدي أونا أخسنا لهاي مستقبل كينا لما والدينتنا الله إنه حفظه كوى نول كوى دينتنا الله جنة الفردوس هكا ورابيه كل المعاني من عراض أو عجم لا